shirka dhuusamareeb 15 bisha dhuusamareeb 3 si loo fashiliyo shirka isaga ah ayaa madaxweynaha wuxuu go'aansaday qorshe kow oo san xukuumad iyo ra'iisul wasaare midna dhisin si aan loo ogaanin ujeedka uu leeyahay ama qorshaha xukuumaddaas ay ka leedahay arrimaha siyaasadda ee dalka wuxuu fashiliyay dhuusamareeb 2 markii asaga iyo ra'iisul wasaarihiisii oo fagaarayaasha ka sheegi jiray inuu asaga ka fiican yahay dadkana ugu fiican yahay xukuumaddiisana ra'iisul wasaaraha ay ka fiican tahay oo si afgambi ah oo qoorjabin ah xilka uga tuuray subax Soomaali iyo adduunba ay ku waabaristeen ujeedka dhan oo laga lahaana wuxuu ahaa in dhuusamareeb 2 lagu fashiliyo dhuusamareeb 3 waxa lagu fashilin rabo waxa waaye inaan xukuumadna la magacaabin ra'iisul wasaarana la magacaabin waxa laali wixii ka soo baxana madaxweynaha uu sheegto inuu baarlamaanka ku celinayo markii uu yiraahdo baarlamaanka aan ku celinayna xukuumad iyo ra'iisul wasaare gacan ku rumisa inta la magacaabo la yiraahdo mashruuca xukuumadda oo 2 sano ku salaysan oo muddo kororsigii ah baarlamaanka la isla geeyo saa ogtihiina baarlamaanka xubnihiisa intiisa badan oo guddoonka ugu horeeyo waxay raadinayaan waa muddo kororsi doorashada dadban ay ku celcelinayaan doorashada waxaan rabnaa qof iyo cod ay leeyihiin qof kasta oo Soomaaliya saqiir kabiir oo ogtahay inay tahay muddo kororsi inay doonayaan waxa la doonayaa marka wixii dhuusamareeb ka soo baxay inta la iska dhigo hadiiba la isku tago la ansixiyo mashruuca xukuumadda ama qorshaha xukuumadda ee 2 sano ah saas daraadeed waxaan leenahay dhuusamareeb si u dhacdo madaxweynaha waxa laga rabaa xukuumad asagu waa madaxweyne howl maameelka fulinta iyo qorshaha doorashada ee lagu soo heshiiyay asaga fulinteeda shaqo kuma laha laanta fulinta xukuumadda oo xil saaran madaxweyne waxaan leenahay magacaaw ra'iisul wasaare dhis xukuumad hogaamisa xilli kala guurka ah ma dhici karto xukuumad la'aan in xilli kala guur laga wada hadlo su'aasha waxay tahay yaa fulinayo waxa lagu wada hadlay ma xukuumad sharci darro ah oo tuugaysi iyo dastuur aan ku dhisnayn iyo dadka Soomaaliyeed ku aaminayaan xilli kala guurka waa maya saas daraadeed madaxweynaha waxaan ka dalbanaynaa inuu dhiso xukuumad magacaabo ra'iisul wasaare